waa ilbiriqsiyo u dhaxeeya nolosha iyo geerida. waa xaaladda ka dambaysa dhacdo kasta oo ku saabsan shil ama halisyo kale oo si kadis ah ku dhacay. howlwadeennada gurmadka degdega ah waxay diyaar u yihiin in ay qabtaan hawl muhiim ah oo aan lagu jaangoyn karin qiimo kasta oo lacageed. waxay bixiyaan dadaal kasta oo lagu badbaadin karo naf dhiban oo u baahan in la samata bixiyo. waxay fidiyaan gacan astaan u ah rajo nololeed iyo badqab ilaa ay ku hubsadaan xarun caafimaad oo takhasus u leh la tacaalidda xaaladda dhibanaha. waxay xaaladaha xasaasiga ah la falgalayaan iyaga oo wajahaya culaysyo iyo cadaadisyo daran oo isugu jira kuwo dhacdada ka dhashay iyo qaar si bareer ah loogu beegsado. marka la joogo Soomaaliya, gaar ahaan magaalada Muqdisho, shaqaalaha iyo gaadiidka gurmadka degdega ah waxa ay dadku u leeyihiin ahmiyad gaar ah, maxaa yeelay waa magaalo ay saacad kasta suurtagal tahay in halis lala kulmo oo loo baahdo caawin degdeg ah. kaalmada ugu horeysa ay fidiyaan shaqaalaha gurmadka degdega ah ayaa dhibanaha ku abuurta kalsooni iyo rajo tusinaysa in uu badbaadi doono. shaqaalaha gurmadka degdega iyo gaadiidka ay adeegsanayaanba waxa ay mudan yihiin dhowrid iyo ixtiraam gaar ah si iyagana looga helo daryeelid iyo caawin marka lagu jiro xaaladaha cakiran ee baahida ugu weynina ay tahay kaalmo si dhaqso ah loo bixiyo. aqoonso oo garab istaag shaqaalaha iyo gaadiidka ku howlan gurmadka degdega.